fatahaada wabiga shabelle ayaa laga cabsi qabaa inay markale dib ugu soo laabato gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka Kirar. Injineer Cabdisamed oo kamid ah injineerada gobolka Kirar isla markaana la soo shaqeeyay dawladii hore ee Siyaad Barre ayaa waxa uu ka hadlayaa qaababka lagu xalin karo wabiga shabelle laga joojiyo biyo baxada faraha badan ee beledweyne oo billions of dollars ku baxday dhageysta warkeyga billion of dollars ay ku baxday oo biyo baxa 3 bilood ka hor laga baxay ee geeda tan ay soo socoto yaani lacagtii faraha badneed oo deeqda ahayd oo dawladda u soo mareysay in biyo baxada soo socoto ilaahda joojin kara gobolka aan lagu tuugsi tagin lacagtii Chinese-ka iyo dawladuhu ay keeneen in lagu sameeyo canals ilaa 50 kilometer linear kilometer square ma haya wallahi xilligan in laga barakaca mooyee ka hortagis ma laha laakiin waxa la yidhi prevention is better than cure waxay ahayd dawladda Farmaajo biyo baxadii markaan ka nimid canals badan inay samaysay waa ku feelgarowday waa ku feel billions of dollars we get failing lama hayo suuragalna ma aha beledweyne billions of dollars trillion madama dhismaha wuxuu ku fadhiyo marka lamana yeelahayo dawladdu qaladka iyo meesha ay beledweyne hiiraan kaga dhacday mid la aqbalaya ma Maxamed Toone Cilaw wararka telefishinka Star beledweyne.